kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada falanqaynta ciyaaraha galabta ka dhaca garoonka kubadda cagta Jijjiga Stadium. Dabcan waxaa la ciyaaray 2 kulan oo xiiso leh. Haddii aan eego kulanka Qorraxay iyo waxa ciyaara Daawo oo markaa ku wada jira groupka dabcan ay ku wada jiraan Daawo iyo Qorraxay barbaro hal iyo hal ay galeen. Rigoore ayay heshay xulka gobolka Qorraxay kadib markii gool lagala hormaray. Goolkaasi waqti badan buu ku qaatay. barbaradaasi waxay u suura gashay inay noqdaan xulkii ugu horreeyay ee gurubyada ka soo baxa asigoo aanan wax guul daraa la kulmin. 2 barbaro ah iyo 1 guul ah oo Liibaan ka gaaraya u suura geliyay Qorraxay inay si toos ah ugu gudubto wareegga xiga. Daawo dabcan waa barbaro ayay gashay inkastoo kulankii hore ay badisay sidaasina waxa ay iyaduna markaasi ay ku heshay fursad fiican oo iyaduna ay groupka ay iyaduna banaanka ay ku timid. inkastoo marka loo eego ciyaar xiiso leh soo dhigtay kulankii hore ay soo dhigtay oo markaasi Liibaan ay ku soo tumatay. dabcan afdheer iyo waxa asna ciyaaray oo kulan xiiso leh dhaxbaray xulka gobolka Shabeelle hase yeeshee markaan eegno xulka Shabeelle ciyaar wanaagsan soo bandhigay afdheer jaanis fiican ayay heshay oo goolka ugu horeysay ay la hormartay kale ayay barbaraysay qaybtii dambe dhammaadka ciyaarta iyo goolka Qorraxay Shabeelle inkastoo ciyaar fiican ay soo bandhigeen taageerayaal badan ayaa ka soo qayb galay waxaana dabcan kulankan u noqday kulankii labaad oo aan wax haweenaysa ka soo qayb galin kadib markii laga mamnuucay inay haweenku u soo daawasho tagaan xiriirka kubadda cagta dabcan andhaha guddiga ciyaaraha qabanqaabada ayaa dabcan go'aankaasi soo saaray maalin ka hor waxaana iminka muuqata in ay ciyaaruhu ay marayaan wejigii labaad loo gudbayo Qorraxay 3 kulan ay ciyaartay iminka groupka ugu horeysay tababaraha xulka gobolka Qorraxay ayaa hadlay wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay inay guul muhiim ah gaaraan magacaygu waa Laar Cilmi Shariif ahna macalinka gobolka Qorraxay la ciyaaray maanta dhigiisa gobolka Daawo wallahi barbaradu ciyaartu waa nasiib 3 baa loo soo galaa inaad badiso inaad barbaro gasho iyo in laga badiyo walow maanta hamigana uu ahaa inaan guul gaadhno si aan groupka anaga lambar 1 uga soo baxno haddana anaguna dhinaca anaga dhulka la dhigin 1 kulan aan badinay iyo 2 kulan oo barbaro galnay inaan saak ku soo baxnay groupka anagana aan 5 dhibcood kaga soo baxay walow aan rajaynayo koobka hadduu Ilaahay yiraahdo inaan ka soo qayb galo noqonin tartanka meesha u fiican u dambaysa ee loo hambalyeyn doono inaan ka gaadho anoo sidaan hore u sheegay inaan taalada labaad oo magaalada oo koobka ku sawiran yahay in loo sameyn doono gobolka Qorraxay hadduu داوانا بسا اسكرا راسا بسم الله magacaygu waa Yaxya Ali Axmed waxaan ku tirsanahay taageerayaashii gobolka Daawo insha Allah Daawo waxaan u rajaynayaa inay koob qaadato insha Allah guulan baan rajaynaynaa insha Allah Daawana basa iskara rasa